الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إخواني في الله قلبت ميشان وحانو كغهد لينا arrimo baryahan jiray waxa kan social media la yiraahdo gudahooda ka socday war laga soo duubay nin inta isor dhigay masawir oranayo qofka kalmeeshan ku masawirani waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam meeshan dhinacayga waxa fadhiya oo yaala xabiibullah muhammad salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala ashabihi wa ajma'in الذي قال الله في كتابه الكريم في حقه وهو يخبرنا ويعلمنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين marka arintaasi aad iyo aad ayay u faaftay meelo kala duwanna waa layga soo wacay oo dhulka arintaasu ay ka dhacday uu ka mid yahay marka haddaba hawsha noocaasa markii la eego waa hawl haddii shareecada islaamka loo fiiriyo aad iyo aad khatar u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ambiyadiisa midkii ugu dambeeyey buu ahaa oo nebi ka dambeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jiro ilaahay qur-aanka waa uu ku soo qaaday ilaahay wuxuu yidhi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وحا إلهي أويري النبي محمد معهم بويري قف أورجينا كمد آبه معها إلهي رسولك سويه كي نبياش خاتمي أو دميستر أيوه نبي محمد أنبياء إنه وجود دنبيي cid ka dambaysay nabi noqonaysa aanay jirinin waa waxa quraanku uu ku yimid oo nabiga axaadiistusuna ay ku timid calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi khutima biyal anbiyaa baa nabigu yidhi aniga waxaa laygu dhammaystiray buu yidhi nebiyaashii baa laygu dhammaystiray nabigu haddaba xadiidkaa wuxuu ku soo qaaday ambiyada markuu ka warramahayey inay ambiyadaasi ahaayeen guri inta la dhisay aad u qurux badan oo guriga bulukeetiyadiisi mid uu ka dhimanaa oo qofku markuu guriga inta yacni agtiisa uu yimaado oo uu fiidhiyo oo uu yidhaahdo gurigaani waa qurux badan yahay ilaa halkaa bulukeetiya oo ka maqan maahane anigu marka bulukeetigaasaan ahay buu yidhi booskaas bulukeetiga marka xadiid imaamu axmed uu wariyey ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ina alrisaalata wannubuwata qad inqadacat falaa nabiya bacdii walaa rasuul buu yidhi nebigu wuxuu yidhi risaalada iyo nebinimadu way go-een buu yidhi nebi aniga iga dambeeya iyo rasuul aniga iga dambeeyaa ma jiro nebi moxamed inuu ilaahay ambiyadiisa ugu dambeeyey oo nebi ka dambeeya aanu jirinini wax khilaafu ka jira ma aha waa waxa qur-aankii uu ku yimid waa waxa axaadiidkii rasuulku ay ku timid waa waxa ijmaacee muslimiintu ay ku kulmeen masaladaasi waxay ka mid tahay masaa-isha ee cilmigeedu uu daruuri yahay oo qof kastoo muslimihi uu ka warqabo marka arrintan noocaasa wax ka beddelan qofkii la yimaada waa wax islaamnimadiisa uu ku waayahayo oo diintiisa uu uga baxayo kaa weeye ninka hadda hadalka odhanayo waxaa ka muuqanahayay
fakar hadda ka horba yacni aanu ka hadalnay oo waxa la yidhaahda tanaasukhul arwaax. dad ayaa waxay qabaan nafaftu inay guurguurhayaan oo dadkii hore u dhintay naftoodu inay dib adduunyada ugu soo noqonaysa cid kale ay gelayso. sheekadu awal marka waxay ahayd in dad awliyaa iyo waxyaalo noocaasa laga hadlo, laakiin hadda waxaad arkaysaa inay nebi moxamed laftigiisa ay marayso. arrintaasina marka waa arrin baadil ah, waa arrin ka soo horjeeda kitaabkii qur-aankii bay ka soo horjeedaa, sunnada nebiga ayay ka soo horjeedaa, waxay ka soo horjeedaa shaygii arkaanul iimaanka ka mid ahaa oo ahaa maalinta qiyaamo inaan annagu rumaysannahay. ilaa mar haddii la yidhaahdo qofku adduunyadu usoo noqonayaa macnaheedu waxa weeye hadda aakhiro waxa la yidhaahdaa ma jidhe ee dadku way iska daba wareegaysanayaan oo wixii dhintay dib bay usoo noqonayaan. waxay ka soo horjeedaa wixii qur-aanka iyo axaadiista rasuulku ay ku ansaxday oo qofku marka yacni uu geeriyoodo inuu jazihiisa la kulmahayo jazahaasi, haddii janno uu yahay iyo haddii naar uu yahay, oo xaaladda qabriga uu ku sugan yahay xaalatulbarsakha la yidhaahdo inuu arrintaa kula kulmahayo. marka hadda hawshaa dib ugu laaban maynee muxaadaro dheer ee waxaa ninkaa ka muuqanhaya tanaasukhul arwaaxa kollayba kaa unbuu u jeedaaye ayaanu kaga hadalnay. muxaadaradaas marka youtube-ka ayay ku dhex jidhaa, waxayna soconaysa 2 saac ka badan ayay soconaysa. qofkii marka u baahan meeshaasuu ka fiirinahayaa. weliba asaga laftigiisa haddii qof khaldamay haddii uu yahay oo shaydaan iyo balaayo iyo saaxireen iyo balaayo ay heshay, maxaa yeelay ninka nebiga uu ku sheegayo ninka afkaartaadu ka xambaaray weeye. marka waa kula talin lahaa muxaadarada inuu dhegaysto haddii qof diintan islaamka wax un ka aaminsan haddii uu yahay, intay rabtaba ha la ekaatee. intaa marka waxaan uga gudbahayaa nebi moxamed adduunyadan ku soo noqon mahayo. cid adduunyadan dib ugu soo noqonaysana lama arko. ilaahay markii nebiga uu la hadlahayo wuxuu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituuna, adugu waad dhimanaysaa buu yidhi, ayaguna way dhimanahayaan. humma innakum cinda rabbikum takhtasimuun, markaa kabacdi ilaahay agtiisa ayaad ku doodaysaan ayuu ilaahay yidhi. marka waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay ambiyadiisii marka nafta laga qaadahayo waa loo doorhomaadin jiray. oo waxaa nebiga ka soo arooray nebigu inuu yidhi maa qubida nebiyun xataa yukhayar, nebi nafta lagama qaadin ilaa loo doorhomaadiyo oo la yidhaahdo ilaahay adduunyada in lagu daayo miyaad rabtaa, oo intii aad rabta aad noolaato inta laga gaarahayo nafqada uulada ah, mase waa lagaa kaxeeyaa qadar alla. ambiyadoo dhan xadiidkii bukhaari iyo muslim oo caysha warisa waatii uu ahaa nebigu inuu yidhi maa marida nebiyun xataa yukhayara bayna addunya waalaakhira, yacni nebi ma jirado ilaa waxaa loo doorrimaadiyaa adduunya aakhiro. in lagu daayo miyaad rabtaa oo intaa rabta aad noolaato, mase in lagu kaxeeyo ayaad rabtaa. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay adduunyada in laga kaxeeya ayuu doortay. asxaabtiisa markuu u sheegahaya isagoo marka hore hadalka nebigu u maldahay aakhiru cumrigiisii, masaajidka ayuu ka istaago wuxuu yidhi, xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo rag kaleba ay wariyeen ayaa nebigu wuxuu yidhi, xadiidkaa bukhaari baa wariyey, rag kalena waa ay wariyeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adugu waa raggaas baa xadiidkaa wariyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna cabdan khayarahu allaahu bayna addunyaa wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cinda allah. addoon baa ilaahay wuxuu u doorrimaadiyey adduunyo in loo daayo iyo waxa ilaahay agtiisa ahaadoo dhanka aakhiro in loo kaxeeyo, markaa wuxuu doortay waxa ilaahay agtiisa ahaaday. marka asxaabtii nebigu inuu naftiisa u jeedo waxaa dareemay markaa abubakar keliyaa booyey. ilaa qaarkood ay yidhaahdaan haddee nebigu addoon buu ka warramee, isla markii nebigu markuu geeriyooday waxay yidhaahdeen waxaan ogaanay nebigu cidduu u jeeda asaga inay tahay. abubakarna wuxuu ahaa ninka noogu aqoonta badan buu ahaa. marka caaisha markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyoonhayey oo naftu ay ka baxaysay, waxay maqlaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo odhanahaya
اللهم الرفيق الأعلى إله رفيق السر أدور وقالك قاركود إله يهدل سي رفيق السر إله ذنبك قدافو إن حريصه والحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى إله محوها إله ذنبك قداف إله إن حريصه إله رفيق سريها للسي سيدا النبي عليه الصلاة والسلام ولها روايوك قاركود مركي يعني ايكا ورمها مع الذين أنعم الله عليهم إله يعني هللسي كوا يعني إلهي ونعمي أما أنعمت عليهم هذا النعميسي مركا كوا نبغو شيغا هيانا وكوا قرآنك اللغسو قادة إلهي أولها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حديث كي مركب بخاري وري مركب عائشة سيدا كما غشي مركب محايتري إذا الله يختارنا ويتي نبغو مركب ندورن محايتري فعلمت أنه خير وحن أقادي بيتي النبي إن له الدور بادي مركب سيدا ورنا هيواك إذا لا يجاورنا وكرواية كره نبغو يعلن لدرس ما هي حق صوت دورتي marka nabi maxamed ama ha noqoto ama ilaahay anbiyadiisa kala ha ahaatee anbiyadu sideenoo kale ayadoo waxna la weydiiyo aan la arag ma ahayn dad adduunyada laga qaada ma ahayn dad waxay ahaayeen la weydiiyo la yiraahdo adduunyada miyaa la idiin daayaa mase waa la idinka wadaa in laga wada ayayna dooranayeen waatii ilaahay quraanka uu ku lahaa walal aakhiratu khayrun laka min al-uula aakhiro ayaa midii horeysa kaaga khayr badan maanta marka qof inta yimaado inuu yiraahdo nabi maxamed baa soo laabtay adduunyada u soo laabtay inuu yiraahdo taasi waa beenin diintii islaamka ahayd ee wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la yimid la beeniye kaawe sidaa daraadeed marka ninka hadda hawshaan hadda sameeyey hawlihiisu mararkii hore waxyaalihii uu la yimid waxay ahaayeen nasra inuu garaaco koox inuu samaysto oo qasaa'id qaadahay nabiga lagu amaanayo waliba markuu xaaladda ku dhex jiray waxaana soo gaaray xataa salaada inaanu ilaalin jirin aanu tukan jirin salaad asaga iyo dadka meesha uu ku siriyo dad ka mid ah oo salaadu aysan barnaamijkiisa ka mid ahayn howlaha waana soo gaaray waliba dad xiriir gaar ah ayaa noo sheegay ayadoo waliba markaas annagu arrintaas hadda ka hor maraan warkeeda soo qaadnay dad ay jireen difaacahaya oranahaya ninka been baa laga sheegayaa waxa ma uusan samaynin oranahaya mushkiladuna marka waxa weeye dadkan zanaadiqada waxa lagu yaqaanaa marka hore dadka way khatalaan oo in badan bay isqariyaan dad hadda ninka maxalkiisa tagay mar sheekaynaya hadalkooda waxa ka mid ahaa inay inta tageen meeshiisa ay dhowr salaadood ku tukadeen oo markii salaada waqtigeeda la gaaro intuu tago qol uu galahayay mar alla markii salaada ay ka baxayaan uu soo fariisanayay marka waa nooc khiyaano ah salaada inuu la yimaado ayaanu doonayn dadka noocaas ee shayaadiintu ay wax u waxyoodaan hadda salaada iyo dhikriga ilaahay marka waa uu dhibayaa mar rabaan oo marka waxay qabaan inay gaareen darajo aan takaaliifta lagu lahayn inay gaareen dadkaasi waa dadka hadda ka hor uu ka hadlay imaamka Ghazali la yiraahdo mar la weydiiyo qof noocaasa ee yiri waxaan horey u jiri jireen hadda Ghazali 1000 sano waa laga joogaa dad yiraahdo suufiyaal baan noo yiraahdo waxaanu gaarnay darajo yacni takaaliiftu ay naga dhacday ayaanu gaarnay marka imaamu Ghazali wuxuu yiri wasala walaakin ilaa saqarabu waxbuu gaaray buu yiri laakiin naarta jahannama ayuu gaaray buu yiri marka ma jidho qof salaadu ay ka dhacayso asagoo miyir leh salaada inuu tukado uu awoodi karo si kastaba ha ku awoodi kare maxaa yeelay salaadu waa waajib qofka mu'minka saaran ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta salaadu waxa weeyo ilaahay yiri waa farad waqti leh ayay dadka mu'miniinta ku tahay haddii cid salaad laga qaadayo nabi maxamed baa laga qaadi lahaa asagoo sakaraad uu tukanayay bal sida xadiidkii Bukhari ku soo aroortay iska dhaaf tukashay inuu jamaacada ka soo qayb galo ayuu isku dayay ilaa dhowr jeer uu yiraahdo biyo igu shuba
oo markaa inta baaf loo dhigay waxaa la yidhaahdaa carabta dhaqankooda wuxuu ahaa haddii qofka biyo lagu shubo xoogaa biyahaasi xoog bay talahayaan biyuhuna weligood qofka hadduu cabba iyo quwaysiiyaa markaasuu markii hadba inta lagu shubo uu dabca inuu shaahidka soo aadaba intuu miir beela ayuu dhacahay ilaa dhowr jeer arrintaa la sameeyo hadalladii nebigu uu ku dardaarmay markii nebigu uu geeriyoonahaya ee weliba hadalladiisa kuwa ugu dambeeya ka mida waxaa dardaarankiisu u ahaa assalaa wamaa malakat aymaanukum salaada iyo waxa midigtiinnu ay hanatay oo nebigu marka dadka salaadana waa uu kala dardaarmahayay dadka yacni addoommada inaan lagu xadgudbinin iyo waxa gacanta lagu hayo oo dhan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kala dardaarmahayay marka shu'uunta ninkaas lagu caddeeyeyna waxaa ka mid a arrimahaasaa ka mid a haddaba waxaa weeye hadda ka hor dadkii yacni awal difaacahayay ama khatalaadda uu ku samaynahaya awqaadda qaarkood hadda waa kale waa isi soo bandhigay bannaankuu iskeenay asagoo leh nebi moxamed cid aan ahayn baa nebi asagoo odhanay sheekadaa markay soo gaartay inta cajaladaas uu soo duubay aanan arag ayaan dad waxaan ku idhi ninka hadda nin odhanahaya nebi moxamed weeye berina talow wuxuu soo wadaa ninkaasi inuu yidhaahdo anaa nebi ah markaa kabacdina hadda waxaaba ka dambayn doona ilaah baa ila hadlay iyo ilaah baa wax ii waxyooday iyo lagaba yaabo xaaladdu inay la gaarto marka dambe anigaaba ilaah ahoo ilaah baa igu soo degay marka inuu yidhaahdo maraan hadda yacni maantaydaan hadda daqiiqada ka hor mar yacni aan daawaday aan u malaynaya mansac ka hor bay ahayd cajaladii markii aan daawaday laftigeedii hadalkii aan idhibaa iga dhex muuqanayo asagii odhanhaya haddeer haddaan anigu idin idhaahdo bal iska dhaaf axadka kan mukaramka ah xasaan ahoo kidaaye haddaan anigu idin idhaahdo nebi baan ahay sidee ku diidi kadhaan maxaad ku diidaysaa hadda ka hadlaysaa anigu maba ku odhan kare macadallaahi ilaa maxamed ba ahay laakiin haddaan ku idhaahdo waa inaad tiraa nacam sadaqta mutaqadamacadlaysaa limaada nuur bay ahay ku yidhi wax la yaab la wey haddaba hawsha meeshaas maraysaay waxa weeye amtara dhaaf balaqa saylo azubaa wixii carabtu ay odhan jireen markaan hawshii waa soo gudubtay haddii la isqalin jiray bannaankaasaa la keenay haddii yacni awliye la sheeganahayey haddii suufinimo la sheeganayay waxaasoo awalba aan ogeyn in muxuu ahaa wax ka jira aana jirin haddaba hadday xaaladdu meeshaa marayso maxaa marka la rabaa waxa weeye zanaadiqadu weligoodu way badnayd oo axaadiida rasuulka bukhaari uu ka mid yahay waxay wariyeen nebigu inuu yidhi kuwa dajaaliina ayaa soo baxaya kulluhum yazcumu annahu nebiyun mid walba uu sheeganhayo inuu nebi yahay nebi moxamed oo joogay bilowdeenoo ninkii musaylimatulkadaab baa ka mid a wakhtiyadaa dadkii soo baxay aswadulcansi baa ka mid ahaa way badnaayeen nebigu intuu noolaana dagaal buu la galay oo rag buu u diray markuu geeriyoodayna kuwii nebiga gadaashiisa xilliga abubakar iyaguna nebinimada sheegtay kulligood waxbaa laga qabtay dadka marka zanaadiqada ahi weligood muslimiinta way ka soo dhexbixi jireen dhanka falaasifada way ka imaan jireen dad wadaaddo sheeganaya xaggoodana way ka imaan jireen xilligii umawiyiintii bay jireen xilligii cabbaasiyiintii bay jireen laakiin waxaa la tacaali jiroo wax ka qaban jiray ee waxa abaalka ay leeyihiin marin jiray dadkii muslimiinta marka madaxda ka ah haddaba maanta waxa weeye dadka culummada ah ee maanta ninkaa meesha uu jooga ku nool maantay maxaa u yaalla oo la gudboon waxaa u yaalla hawshaan maanta inay wax ka qabtaan hawshaani maanta way caddahay ninkaasi haddii uu waalo yahay iyo hadduu fiyow yahayba labadaba dadka in laga qabto hadda waxaan arkahayey oo markii howlahan la isoo gaarsiiyey ee weliba la ii sheega websiteba inuu samaystay ayaan xalay website-kii la sheegahaya baan fiidhiyey marka waxaa ii muuqanhaya tadawurka meesha dhacayoo xataa nasaladii intuu dhaafay in hadda muusikooyin iyo macaasiftii iyo aaladii malaahidii in la garaacahayay wiilal ayaguna garaacahayo oo isruuxahaya waxaa ka sii daran gabdha ayaguna loo garaacahayo odhanhaya qasiida nebiga lagu ammaanahayaan qaadayna ee weliba isruuxahaya waxaa oo dhan
oo weliba munkaraad ah ee fawaaxish ah ee shareecada islaamka haddii la eego aan lagu ogolayn waxyaalahan macaasifta la yidhaahdo ee waxyaalaha malaahida ee qofka ilaahay daacadiisa iyo wanaagga ka shuqlinahaya ay yihiin marka dadka culummada maxaa u eg dadka culummada waxaan leeyahay qaarkoodna waa ismaqalle culummada weliba maanta joogta meesha waxaana ka dhacay mudug dhulka lagu magacaabo culummada jooga magaalada Gaalkacyo culummada dhulkaa jooga ee weliba ninkan hawshaa la yimid ehel u ah qaraabo la ah nisbe ay wadaageen culummadaas maanta waxbaa u yaalla qaarkoodna waa ismaqal waxa weeye hawshaan maanta in wax laga qabto weeye weliba inaan waxnana lagu dhaafin weeye ninkan nisbe kasta uu wato inuu ina sheekh fulaan uu yahay wax ay ka difaacaysa male sheekhii dhalana waxay u dhibaysa male xumaanta asagu la yimid mas'uul kama aha adduuniya aakhiro midna asaga ceebna kuma aha sharaf dhacna kuma aha ilaahay quraanka wuxuu ku yiri walaa tazilu waazilatu wazra ukhra buu ilaahay naf dambowda naf kale dambigeedii qaadi mayso ina sheekh hadduu ahaa waxaan sheekhiisu ugama tegin maanta haddii uu nool yahana wuxuu raalli ka noqon lahaa ma aha marka waxa wixii uu la yimid oo dadka uu bari jiray diinta islaamka ahina ay qabtay wax khilaafsan in lagu dhowro ma aha sheekh fulaan baa dhalay in lagu dhowro ma aha mar haddii waxa weeye uu khilaafay dadkii culummada ahaa ama aabihi ha noqdo ama cid kaleba ha noqdee wax ka dhexeeya ma leh ehelna uma aha ehelnimada ilaahay waa tii uu ka anfiyey nebi nuux wiilkiisii oo nebi nuux wiilkiisii markii uu yidhi warkaale doonta nala raacay markaa uu diida uu haftay ayuu rabbi la hadlo wuxuu yidhi waa kan qur-aanka ilaahay uu ku rahaa wanaadaa nuuxu rabbah faqaala rabbi ina bnii min ahlii wa ina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin wuxuu yidhi ilaah baa wuxuu yidhi nuux baa rabbigii u dhawaaqay wuxuu yidhi ilaaha wiilkaygii aniga ahalkaygii buu ka mid yahay ilaahow yaboohaagu xaq weeye kuwa wax xukuma midka ugu xukumka badan baata waxaana ii yaboohday ahalkayga doonta inaan saara ilaa ahlaka waati ilaahay uu yidhi inkastoo ilaahay isna uu ku daray oo ilaa man sabaqa calayhi alqawlu ilaahay uu yidhi malaha isnahaasuusan aad nebigu yacni uusan usii milacsan hadda dhaliyadiiyo wixii baa markaa nebiga jiitayo sidaa ilaahay markuu ku yidhi ilaahay muxuu yidhi yaa nuuxu innahu laysa min ahlika innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun innii yaaciduka an takuuna min aljaahiliin wuxuu markaa ilaahay uu yidhi nuuxow ahalkaaga ka mid maahan buy waa camal aan wanaagsanayn macnaha mid camal ay duu camal gayru saalix wey macnaha waa mid sameeyey camal aan wanaagsanayn mid sameeye weeye camalka yacni asagu uu la yimid waa camal xun marka ahalkaaga ka mid maaha meesha ilaahay marka wuxuu muujiyey yacni nebiga ilmihiisu hadday xumaadaan ahalkiisa inaanay ka mid ahayn ninka sheikha ama yacni caalimkaa hadday ilmihiisu xumaadaanna ahalkiisa ka mid ma aha ahalnimo in lagu dhowro ma aha ahalnimada waxaa lagu dhowrahayaa dadka wanaagsan waxaa lagu dhowrahayaa dadka culummada raadkooda raaca waxaa lagu dhowrahayaa dadka yacni islaamnimada haysta laakiin nasabiyad keliya wax lagu dhowrahayaa ma jiraan nasabiyada hadhow qiyaamo lala tegi mahaye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi hadda intaana aayaddaa u gudbin waxaad arkaysaa xataa nebi nuux si adag buu ilaahay ula hadlay ilaahay wuxuu yidhi yacni waxaan kaa waaninahayaa buu yidhi inaad i weydiiso waxaan markaa ilaahay wuxuu yidhi inahu camalu falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun ha i weydiinin buu yidhi waxaadan aqoon u lahayn innii yaaciduka an takuuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninahayaa kuwa jaahiliinta inaad ka mid noqoto bal hadalka adag ee nebi nuux lagu yidhi bal u fiirsa marka waxa weeye wiilku mar hadduu diintii ka leexday wax idinka dhexeeya marka ma jiraan ma garad iska dhaaf sheekh hore u dhintay kuwiinaan hadda nool hadday ilmihiinnu ay sidaasoo kala sameeyaan wax idinka dhexeeya ma jiraan ilaa ilmanimo ku dhowrtaan ma aha waxa weeye qof kasta annaga waxa keliya aan dhowranayno oo waxaan annagu ilaarsanayna asalka wixii waxa weeye
وكتابك إلهي وسودجي يسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليه waxaan noo soo raaca waxa weeye culumadii wanaagsanaa ee mujtahidiinta ahaa fasilkii ay noo fasileen marka waxa qofkii inta ka dhaxbaxay maantay hadalka uu la yimid beenin waxa la beeniye uu yahay wax naga dhaxeeya ma jiraan waa inaan ahlnimo ku dhowrin waa inaan qaraabanimo lagu dhowrin waa inaan tolnimo lagu dhowrin waa inaan nisbo lagu dhowrin iyo abtiris midna waxa uu yahay in la mariyo way marka sida daraadeed sida quraanka ba Ilaahay uu ku sheegay qiyaamaha hadii la gaaro waxa dhaliye la yiraahdo dadka kama dhaxeeya fa idha nufiqa fi suuri fala ansaba baynahum yawma idhin wala yatasaalu Ilaahay wuxuu yiri boonka marka laga yeeriyo maalinta qiyaame waxa dhaliye la yiraahdo dadka uma dhaxeeya isna weydiinaya marka waa inaan qofna qof mujrima dhaliye uusan ku difaacinin qof walba ogow maalinta qiyaame inaad adigoo kaliga adimaanayso yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بإلهي وأمارنت انت لو جعليه ودنبا لغا عررهايو وقفك أبيه كعررهايو إلميسا كعررهايو ولالكي كعررهايو هوينتيسا كعررهايو مارنت إلهي وحو ليه قف والبوحو ليه حالك فلان بو ليه مركة طبعية لها دي لأيغو وتبعية فردية وي qofku waxa uu sameeyay asaga ayaa loo raacay adiga aabaha wuxuu sameeyay haduu sheekh yahay haduu shaydaan yahay wax alla wixii uu la yimid haday waxaasi wanaagsanayeen haday xumaayeen asaga baa loo raacay adigu waxa la timid hadii aad sheekh tahay hadaad ibliis tahayba wax alla waxaad la timidna adaa lagu raacay ma garad marka yaani waa tabciya fardiya weey qof walba waxa uu yimid asaga ayaa loo raacay marka sida daraadeed waxa la rabaa إلى قفنا وسنكون دفاعين وح قرابة اللي هذا يوح كلام من إلى نكون دفاعين إلهي القرآن كوفه كويري لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلهي وحويري كو أغان ميسيد بويري قلوين إلهي يمارين تقيام رمين هيا إنا يجعليهين قف إلهي يا رسولك صلى الله عليه وسلم هذا قفك النوع عاصو كلاهي وحي القرآن كسقنا هذا كو أنصحي النبي محمد اللي يمد مركب بيني عكسي هذا اللي يمد وقف إلهي يا رسولك صلى الله عليه وسلم قفك إنا يجعليهين كو أغان ميسيد ولو كو نوعاسي aabayaashooda ha ahaadeen wiilashooda ha ahaadeen walaalahooda ha ahaadeen qaraabadooda ha ahaadeen ilaahay wuxuu leeyahay kuwa noocaasa ee kuwa sidaas aan jeclayn waa kuwa qalbigooda ilaahay iimaanka uu ku qoray laabtooda kuwa ilaahay iimaanka uu ku sugay weeye kuwa ilaahay uu ku xoojiyay weeye nuur ilaahay xaqiisa ka ahaaday kuwa haddana muxuu ilaahay ku abaal marinaya ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي وحو كو أبال مرينهايا قلوين كا جنات وبياشو أي هوس مرهايا بكو أبال مرينهايا خالدين فيها من لسعوت آيات مركا يعني وحوي إلهي جنات كاسو كو أبال مرينهايا بو إلهي لواك إلهي وكرهاد النقضي أيقنا ويكرهاد النقضي هيان إلهي مركا ميشا وحال موجينهايا بعدما ضدكي أيقو أي جعلادين وحي إلهي ورالك أها أي نافصدين وإلهي دلادي سيقول الله يتمين أيضا مركا يعني إلهي رالي بو أيقا حقو ذكر نقضي أيقونا وحي رالي وقر نقضين إلهي إنو أرنتاس أقو أبال مريي جناتك إلهي وشاق كو إلهي محوكة المال وحيلو أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون كوا سوى إلهي حزبي سوي وإلهي كوحديسي كوا أنجعلين كوا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم حزبك إلهي كواسا أرى إن حزب الله هم المفلحون إلهي حزبك سكوا اللي باليوي آيات كان كور ريسانا إلهي حزب الشيطان بقصو قادوا وكوا كدوان ويو أرى إن حزب الشيطان هم الخاسرون إلهي شيطان كوحديسي وكوا خسارة وأنن كاس يوحى الله متكاي وحا أي وضانو مركا يأمن سيه سيدا دلاديد مركا وحا الله رضا هذا كور أروق وحا الله كلمي ضد نينكا الدفاع هيو أيوغو مركا لها
waxaa ninkaa waa lagu masabidanaya marka ayaantaasa marka waxaan ku idhi warkaan waa la caddeeyey haddii adinku marka aad qabtaan ninkaa inaanay ka sugnaanin soomaalidu waxay tiraahdaa war jiraaba cakaaru imaan hadda waa kan wixii waa yimaadeen maanta wax qarsoon ma aha sidaan markay u cad yihiin qofkii hadda ka bacdi wax sheegay ha ogaado kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga iyo nebi maxamedkii uu rumaysnaa inuu qof insaan oo bashara oo noocaasa inuu dhaafsaday ha ogaado hadhow qiyaamo wuxuu ilaahay hortiisa la tegi doonaa isagaa yaqaana marka waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan u jeedinayaa culummada maanta mudug ku nool oo gaalkacya ku nool ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitna aan ku dhacayn kuwa dulmiga sameeyey keliya aan ku dhacayn iska ilaaliya waxaas baa adinka gudihiinna ka socda waxaasi way faafi doonaan ilmaha anigu aan arkahayay muusikada loo garaacahaye ee caruur yar yar oo wiilal yaryar iyo dhallinyaro iyo gabdho yaryar iyo waxaasi ay ku jiraan oo diin waxay ka ogyihiin aan la arag bari ninkaasi hadduu yidhaahda anigaa nebi ah ama anaaba ilaahan ah way iska rumaysanayaan qofku mar hadduusan aqoon diinta u lahayn wax walba inuu rumaysta hala yaabinina haddaba adinka maalin walba arkahaya wiil dhallinyaraayoo 20 jira inta lagu soo rakibo bambo ayaa waxaa la leeyahay dadka muslimiinta isku qarxi mar alla markaad dhimato janna galaysaaye gabar xurur caynaad isku laabaysaa baa leeyahay markaas inta rumayso marka waxaad arkaysaa insaanku hadduusan wax aqoonin wax walba lagu shuban karaa insaanka hadduuna aqoon dadka mas'uuliyad baa idinka saaran marka waxaan idin soo jeedinayaa hadda waad ogtihiin oo maanta gobolkii abaar baa ka taagan awal meesha waa ka warqabtaan oo mooryaan baa dadka jidadka u taagnay intaasoo sanay baabuurta dhacahayeen oo dadka muslimiinta ay dhibaataynayeen dadkiina culummadaha isku miinandayin waliba rag yacni aan ognahay qaarkood oo dabay arrinta inay isku dayaanna kuwii kale garab ka waayeen ma garad waana waxa hadda maanta aan is leeyahay gobollo badan baa roob helay waxa musiibadu meesha ay uga taagan tahay toow ummadii jidka loo istaagi jiray miya waxa weeye tanna waa balaayo kale idinku bilaabatay culummada waxaan idin leeyahay kaca oo meesha ka kaca oo ninkan waa in gacanta lagu dhigaa waa la socdaa inuu hubaysan yahay keligii waxba kama qaban karnaan maamul baa meesha ka jira maamulka meesha ka jira ilaa dawladda dhexe kaashada ninka bulshada in laga dhex bixiyo way asagoo maxbuusa oo gacanta lagu dhigay la hadla ninka haddii uu fiyo yahay hadduu waala yahay annagu wali kubaanan maqalo waa nin dhaqmahayo xaas laho caruur laho hadlahayo caradiisa marhayo weeye laakiin waxaan u aragnaa waxa weeye shayaadiin ayaa warkaan u akhrisay balaayada nebiga uu ku sheegayo oo dadku xataa la leeyahay saaxirna waa uu ahaa ayaa waxaan u akhriyay waxaana weligoodu waa ay jiri jireen ma garan marka bal asagoo maxbuusana haddaad waxaa qalbigiisa galay iyo balaayada waxaan u akhrisay haddaad ka daaweyn ka dhan ka daaweeye wax u sheega xataa haddii uu yidhaahdo waa toobad keenana yaan bulshada lagu sii dayn ninkaa waa in muddo dheeru maxbuus noqda ilaa waxa weeye isbeddel dhaba uu ka yimaado iyo ilaa kuwa uu dhumiyey iyo asagu ay kala haraan asaga markaad gacanta ku dhigta aad qabataanna ilmihii iyo dadkii beenta ugu sheega ayagana waa inaad raadisaan waa inaad wax u sheegtaan waa inaad waxaan inay baadin yihiin aad ka dhaadhicisaan mas-uuliyadaas adinka ayay idin saaran tahay amaam allah culimmadiinna qaarkoodoo isoo wacayna marka waa jidhaa arrintaana marka waan ku idhi aquulu qawlii haadaa wa astaqfirullaha lii walakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu